halkani waa xarunta dhiishweyda ee magaalada Joojiga waxaa ku sugan kumanaan kun oo dadweyne ah kuwaas oo u yimid inay dhiig u shubaan waxyada lagu talagalay dhiig in lagu shubo haatan way buuxaan waxaa jira qaybo kale oo dadka lagu keedinayo isla markaana loo sheegay inay halkaan sii joogaan inta shariiraha ay banaanayaan waxaa sidoo kale banaanka kale halkaan jooga dadyo aad u fara badan kuwaas oo marka dambaysa gudaha u soo galaya si markaas ay ugu deeqaan dhiigooda waxaa la kulmi doonaa qaar ka mid ah dadweynaha u yimid halkaani inay dhiig shubaan annagoo markaas ku hormarin doona qaybta gudaha ah ee dhiigga markaas lagu shubo waxaan galabta u imaaday meeshan inaan u shubo magaranaysaa shacabka anaga tawaalaysan magaranaysaa sida xardarrada ah lagu weeyo waddankoodii iyo dadkoodii iyo ciidamadana geesiyaasha marka waxaan aad iyo aad magaranaysaa ugu mahadcelinayaa dhammaan xukuumadda iyo dadweynaha shacabka si magaranaysaa uga qayb qaadanaya marka waxaan leeyahay dhammaan dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa inay magaranaysaa dadkooda ay garab istaagaan anigana waxaan u imaaday galabta inaan magaranaysaa aan ka qayb qaato inta karaankayga inaan u shubo magaranaysaa dhiigayga halkan waxaan idin walaa inaan dhiig shubo dhiigga waxaan u shubayaa walaalahayga halganka ugu jira ee naftooda hurayaasha ah inaan dhiigaygana u hurno xaaladaydu very happy waxaan dareemayaa maadaama waan dhiig shubayo أنا نفلا يسهريو شعورتي إذا لم يسوقوا بكرو. أيوة عبد الرحمن عبد الله حسن هل كان ما أنتم حنوا بعدين على قيب صدق شعب كقلبيت الست كل قن يعيد ماذا قارك يحوج يعيدين كحوج قارك جلدين صمرت وحاول قارسنا ما أنت لصدق يستودي مركا وحان لقرب تاجنا نعيدن كأنك ورالك سام رسين إن شاء الله. الشعب كأن قلبيت الست كل قن. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ورمان عثمان ما أنت وحان حاجة نومدي in aan la qaybsado walaalaha university sidoo kale inaan garab istaago ciidanka dawladda deegaanka Soomaalida inaan macnaha waxa ugu qaalisan aan ugu deeqi karo ugu deeqo oo ah dhiigayga saasan maanta meesha ugu dareenkayga lama soo koobi karayo maanta waxaan ahay nin ciidankiisii iyo shacabkiisii iyo ummadiisii garab taagan runtii lama soo koobi karayo waad aragtaa wadda farxadda jirtay inaan maanta aan ugu deeqo ciidanka dawladda deegaanka Soomaalida waxaan sidoo kale eegi doonaa qaybta diiwaangelinta oo arkaysaan in dadka xataa qaarkood ay diiwaangelinta sugi laayihiin isla markaana isku dayayaan inay ka qayb qaataan diiwaangelinta ayagoo markaasi waraaqado qaadanaya isla markaana doonaya inay isdiiwaangeliyaan inkastoo shaqaalaha caafimaadka ay u sheegayaan inay iyaga shaqadooda tahay isla markaana ay boosiin doonaan oo ay dadaalayaan haddana waxaa moodaa inay goobtaani tahay goob maanta aad iyo aad loo soo buuxiyey qaybaha kala duwan ee dhiig shubidda haatan waxaa la dhihi karaa way buuxidaa balse dadku waxaa moodaa inay ku qanci laayihiin waxaan markaana aadi doonaa qaybta diiwaangelinta iyo si aan u arno inay qaabka ay shaqada u socoto waxaana sidoo kale warashay la yeelan doonaa qaar ka mid ah dadyooga doonaya inay dhiiggooda shubaan waxaa dhinaciga taagan haatani mid ka mid ah dadka dhiigga doonaya inay shubaan soo dhow walaal waxaan halkan ku suganahay oo goobta diiwaangelinta waxaan imaaday galabta inaan dhiigayga shubo markaan shubayana waxaan u shubayaa dadka hooyooyinka iyo maatada gobolka city oo xasuuqay maleeshiyada xaafadda dhibaatooyinka ugu geystay iyo ciidamada gaarka ee liyu booliska taasoo ugu garab iyo hil aan ugu siinano inaan dhiigga u shubno waxaan halkan ku sugan dhalinyaro aad u badan uguna shubayo uguna deeqaya dhiigooda walaal magacaaga saxan ku bilow walaal magacaygu waa Hani Axmed Maxamed waxaan halkan u imaaday inaan ugu deeqo dhiigayga shacabkayga gobolka City marka aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta dhiigayga ugu deeqo tahay walaal magacaaga saddexan Ibrahim Cabdirasaaq waa la dhaay waxaan maanta xagan u joogaa inaan shacabka galbeedka City lagu dhibaateynayo aan dhiigayga u huro maasida lagu leenayo gobolka City galbeedka City dhiig la'aanta oo dhimanaya maalin iyo habeen laynayo ayaan huray inaan dhiigayga u huro ayaan xagaan u yimid haddana fiiladan ku jiraa waxaan sugayaa waqtigayga inaan galo dhiigga u huro Cabdixkiin Cabdullaahi Gamaadiid Nabad TV Joojiga